ma aha wax cusub in raggu guursadaan laba iyo ka badan oo xaasas ah isla markaana diime ay islaamku ugu horeyso ay baneeyeen. haddaba waxaa suuragal ah inaanad maqal gabadh leh laba say ama ka badan. waxaa jira dhaqamo badan oo dhiirigeliya in gabadhu yeelan karto laba nin iyo wax ka badanba. haddaba waxaan moogan idinku jalbeebin doonaa 5 deegaan oo uu dhaqankani caan ka yahay caalamka guudkiisa. waxaa ugu caansan qoomiyadda Tibet kuwooda dega dalka Nepal, qaybo ka mid ah China iyo dalka Hindiya. sida lagu daabacay magasiinka Life, qoomiyaddan ayaa hablahooda u ogol inay guursan karaan hal nin iyo ka badan hal mar. waxaana la arkaa laba iyo ka badan oo ah rag walaalo ah oo hal xaas wada qaba. dalka Hindiya ayaa safka hore kaga jira waddamada ay qaybo ka mid ah dadkoodu ay dumarkooda u ogol yihiin inay guursadaan laba nin iyo wax ka badan. waxaana jira qabaa'ilo dhowr oo halkan ku dhaqan oo uu dhaqankani caan ka dhex yahay. tirakoob ay samaysay jaamacadda Tibet sanadkii 1988 ayaa lagu ogaaday in 13% ka mid ah qoysaska reer Tibet ee halkan degani ay ku dhisan yihiin dhaqankan. dalka Kenya hore ugama jirin dhaqankani ka hor sanadkii 2013 markaasi oo laba nin ay go'aansadeen inay wada guursadaan gabadh ay wada jeclaadeen, maadaama oo sharciga Kenya aanu arrintan ka hadal isla markaana aan la helayn sharci toos ah oo u diidaya. sidoo kalena qoomiyadda Maasai ayaa la soo wariyay in lagu arkay dhacdooyin la mid ah. dalka China ayuu dhaqankani caan ka dhex yahay, siiba gobollada ay degaan dadka Tibet. waxay aaminsan yihiin in ilmuhu uu yeelan karo in ka badan hal aabbo, maadaama oo dadka Tibet ay yihiin dad fakri ah. walaalaha ayaa guursada hal xaas si ay hal qoys u noqdaan, dhulka iyo hantidana aanay u qaybsanin. waxay yidhaahdeen haddii mid waliba xaas gaara guursado, dhulka iyo beeraha ayaa noo qaybsamayn. waxa kale oo la sheegaa in ka badan 70% qoysaska qoomiyadaha dega kaynta Amazon ay ku dhisan yihiin dhaqankan. Nigeria ayaa noqonaysa waddanka labaad ee qaaradda Afrika ee uu dhaqankani ka dhex jiro. inkastoo aanu caan ka ahayn guud ahaan waddanka oo dhan, haddana haweenka qabiilka Rigwe ee waqooyiga Nigeria ayaa caan ku ah inay guursadaan laba nin iyo ka badan.